xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada mas'uuliyiinta nabadgelyada ee heer gobol ayaa maanta si weyn u soo dhaweeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo socdaal ku yimid magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxa uu kormeerkani ku soo maray dugsiyada uu ka socday imtixaanka shahaadiga ah ee Soomaaliland mas'uuliyiintii soo dhaweynayay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen maanta halkan waxaan lagu soo booqday Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo runtii dhawaan wadanka yimid kana bilaabay Gabiley socodkiisii ugu horeeyay Gabiley oo ah magaaladii uu goor walba markasta oo yimaado ka bilaabay Gabiley Professor waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolkaagii magaaladaadii waxaan degmada Gabiley ku soo dhaweynaynaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah dadka Soomaaliland hawdorka Soomaaliland ahna nin u dhashay deegaanka Gabiley waxaan leenahay Professor ku soo dhawow deegaankaagii degmadaadii iyo gobolkaagii oo maanta adiga oo barwaaqo ah aad ku soo dhawaanayso waxaan ku soo dhaweynay gobolka oo aqoonyaha gobolka u dhashay ma aha markii uu horeysay uu halkan yimiday laakiin mar walba uu ka yimaado dibadda halka ugu horeysay uu cagta soo dhigo halkii uu ku dhashay halkii xundurtiisu ku aasnayd halkii aqoonta looga bilaabay awladaba looga bilaabay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo socdaalkan Gabiley ku joogo ka hadlay ayaa waxa uu yiri Gabiley iyo hareeraheedu waa lafta iyo dhiigga weeyi maskaxdeena waatan halkii lagu ababay waatan marka aniga sharaf weyn bay tahay in halkan madaxda degmadu ay na keenaan oo muddo 50 sanadood in ku dhow aanan arag magaalada waan imid laakiin iskuulkan qalax loo oran jiray maan iman 50 sanadood in ku dhow marka aniga waxa ay tahay sharaf weyn wadnahayga iyo maskaxdeedana way dhaqaajinaysaa waa markii labaad ee uu socdaal noocan ku yimaado gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Gabiley waxaanu inta badan booqdaa iskuulada iyo goobaha waxbarashada sida jaamacadda gobolka Gabiley ee Tima Professor Axmed Ismaaciil Samatar ma jirto wali wax uu kaga qayb qaatay kobcinta waxbarashada gobolka Gabiley amaba si mutadawacnimo ah kaga shaqeeyay jaamacadda Tima ee gobolkaasi Mukhtaar Nuux Ibraahim Honkable TV gobolka Gabiley